fanaanka FJ Xabiib waa fanaan inta badan Soomaalidu aad u garanayso ayaa gabi ahaanba waxa uu shaaciyay inuu fankii joojiyay. Haddaba maxay tahay qisada ka dambeeyay FJ Xabiib oo Soomaalidu inta badan aad u garanayso inuu gabi ahaanba shaaciyay inuu fankii ka fariistay? qisadan xanuunka badan ayuu nala wadaagay FJ Xabiib si ay cibra qaadasho ugu noqoto fanaaniinta iminka fanka ku jiro iyo sidoo kale dhalinta damacsan in ay mar u fanaan noqdaan. haddaba intaan u galan riyadan xanuunka badan nala wadaagay fanaanka FJ Xabiib haddii ay tahay booqashadaada ugu horeeyay channelkeena fadlan subscribe saar si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino. fanaanka FJ Xabiib ayaa gabi ahaanba waxa uu shaaciyay inuu fankii ka baxay waxa uuna sidoo kale raaciyay inuu ku biiray majmaca tabliiq. haddaba fanaanka FJ Xabiib oo Soomaalidu inta badan aad u garanaysa ayaa waxa aynu la sameeynaa xiriir si aan uga wareysano qisada ka dambeysay inuu gabi ahaanba fanka joojiyo. FJ Xabiib ayaa naga codsaday inaan codkiisa bulshada la wadaagin balse waxa uu sidoo kale noo raaciyay qisadeeda bulshada la wadaaga si ay cibra qaadasho ugu noqoto fanaaniinta iminka fanka ku jiro iyo sidoo kale kuwa doonaya inay mar fanaan noqdaan. qisadan xanuunka badan ayaa waxa ay ka bilaabanaysaa sidan. FJ Xabiib ayaa waxa uu sheegay inuu ku tala jiro duubista hees cusub taasoo ugu tala galay 2020ka waxa uuna inoo sheegay inta badan heesaha uu qaado inuu isagu ka fikiro muuqaaladooda qaabka ay noqonayaan maadaama aan jeclaan jiray buu yeeray inaan viewers badan ka helo heesahiga. haddaba FJ Xabiib ayaa waxa uu yiri anigu inta badan waxaan waqtigay ku qaadan jiray sidii aan u raadin lahaa hees cusub haddii aan hees helana waxaan u raadin lahaa sidaan heestaas kaga dhigi lahaa mid qarxada oo ay dad badan daawadaan. sidaan wada ogsoonahay fanaaniintu haddii ay hees qaadaan waxa ay ku daraan sidoo kale in ay iska soo duubaan muuqaal. haddaba FJ Xabiib ayaa waxa uu ku jira diyaarinta muuqaalkan waxa uuna sheegay inuu qorayay maalinba maalinta ka dambeeydo sida uu noqon lahaa muuqaalkan. haddaba waxaa dhacday in habeenada kamid ah waliba xilli dambe oo ay saacadu ahayd 6 saac habeenimo inaan ku gaaray internetka waxaana markaan internetka iska sii xiliyay ku soo dhacday qayb kamid ah kilibka heesta oo aan ka fikirayay inaan ku duubo meel uu magaceeda noogu sheegay inay beer ahayd. haddaba anigoo sidaa ku fikirayay ayaan qoray waxaan ku qoray mobilkayga noodkiisa si aan u diyaariyo oo aan meeshaas u tago biri una soo qiimeeyo maxaa yeelay haddii aan seexdo waxa laga yaabaa inaan kala ilaabo. qorshaha ayaan ku darsaday waana qortay. haddaba waa aan seexday anigoo niyadeeda midaas ay ku jirto. waxa uu noo sheegay fanaanka FJ Xabiib in habeenkaas isla joogin dhalinyaro waxa uu sheegay guriga in la degan yihiin dhalinyaro asxaab ay yihiin kuwaas oo ay bahwada ku yihiin fanka. hase yeeshee waxa uu sheegay habeenkaas qolka waxa la seexan jiray wiil halkii wiilna waa u maqnaa. waxa uu sheegay fildiga ay degan yihiin dhalinyaro badan ku joogeen balse qolkiisa isaga hal wiil kaliya oo la seexan jiray. haddaba wiilkii ayaa habeenka maqnaa waxaana iska muuqatay in riyadan lala doonayay fanaanka. waxa uuna baraha bulshada ama facebookiisa ku soo daabacay boqshad uu ku sheegay qofkii Ilaahay hanuun la doonaya inuu Ilaahay isoo gacantiisa ku waafajiyo. waxa uuna inooga bilaabay qisada halkan waxaana guda galay buu yiri riyadii. markii aan riyada guda galay ayaa markii ugu hore waxay riyadayda bilowgeedii ahayd ka fikiritaanka heestii. haddaba maxaa isbedelay? waxaa mar qura isbedelay jawgeygii waxaana dareemay xaalad aad u cabsi badan oo murugo badan kadib markii anigoo idil heestii iyo wixii aan ku duubayba qalbigayga ka baxeen. waxaanan tagay meel ay ku sugan yihiin dad aanan wajiyadooda garanayn guryo aanan weligay arkin buuro iyo sidoo kale geedo waaweyn. meeshaas waxa ay run ahaantii meel aad u cabsi badan marka qaar waxa maqlayay buu yiri shimbiro iyo wax qalqaylinaya mana dareemi karin. haddaba anigii dhan waxaan tagay adduun kale meeshii ayaan ku socdaa waan cabsanayaa dad ayaan arkayaa wajigooda ma kala saari karo. haddaba waxaa dhacday in aan sidii ku sii waday socodkaygii intaa waa lay wada oo riyo ahaan ayaan ka socdaa balse jismigaygii waxa uu joogaa meesha qalbigayga ayaa la qaaday si loo soo jilciyo oo loo dabciyo. haddaba waxa uu sheegay qisadan waxay ahayd mid murugo leh jirkayga meelna kama dhaqaajin karin waa lay wato waa lay hogaaminayay. ugu dambeyn sidii aan u sii socday ayaa waxa la isaaray meel buur ah. buurtii waa aan fuulayaa waan ku rafaadayaa ma kori karo cagacadaan ayaan ahay ma socon karo intaasoo culays ayaa isaaran waxaan ahay ruux aan dhaqaaqi karin. culayska isaaran waxaad moodaa buu yiri in la iiri 5 qofood inta dhabarka lagaga xiray buurtan kor. sidoo kale ma awoodo inaan meeshaas ka soo dago oo ma dhaqaaqi karo. awoodda kaliya ee aan leeyahay waxa weeye inaan meeshaas koro waan ku qasbanahay inaan meeshaas koro waxaana kaliya niyadeeda ku jirto sidaa meesha u kori lahaay. haddana waxa isaaran culays aad u fara badan. waxaa dhacday inaan meeshii koro oo aan buurtii koro. markii aan dhaladeeda tagay ayaa haddana waxa la yiri ka deg kadigitaankaas waa ii fududeed oo waxaan uga soo degay si tartiib ah. ugu dambeyn waxaa la ii keenay sidaan u soo socday meel ay taagan yihiin niman dhaadheer oo murqo waaweyn leh kuwaas xoogooda markii aad fiirido aad isleedahay kuwaani
adduunkaba intii aan joogo kuma aana arkin waana yaabanaa riyadan waxa ay tahay xitaa ma awoodin dhaqdhaqaaq kale inaan sameeyo keliya waxaas la ifaraya ayaan sameynayay waxa uu sheegay inay nimankii ay taagnaayeen meel waxa ayna ku hareereysanaayeen meesha aan taagnaa anigu meesha dhexda ah ayaan soo istaagay kadib waxaa la yidhi korkaaga fiiri markii aan kor fiiriyey waxaan ku arkay buu yidhi xarig soo laalaado waxaa la yidhi qoorta ayaad gashanaysaa dabadeed markii qoorta lagu geliyo ayaa halkaas madaxa ah lagaa surayaa waxa aadna ku qasban tahay kursigaa lagu dhigaya kursigaas waa lagaa bixinayaa waxay igu yidhaahdeen buu yidhi maanta waa maalintaadii kugu dambeeyay adduunka halkan ayaa lagu gelinayaa wayna kaa idlaatay nolosha ee isdhiib ee meeshaan tag anigii waxba ma awoodo waxaan ku qasbanahay buu yidhi inaan kursigii meesha yaalay koro dabadeed waxa uu yidhi qoorta ayaa waxaa la ii geliyay xariggii isla markii aan qoorta xarigga la galay waxa ay tuureen buu yidhi kursigii dabadeed anigii meesha ayaan jaq ka soo dhahay markii aan meesha jaq ka soo dhahay ayaan waxaan la soo booday qaylo aad u weyn waxaana gabi ahaanba dareemay dadkii xataa dariska ilaaha gurigii qolkii ila jiifa dhalinyarada way soo galeen FJ maxaa kugu dhacay bay dhaheen aniga waan naxsanahay aniga oo weerarsan oo jahawareersan dhalinyarada dhan baa isku soo baxeen way ii imaadeen maxaa kugu dhacay saacada kadib waxaan uga warbixiyay arrintaydii dabadeed habeenkii intii hurdada iga dhimaneed xitaa maan seexan waxaan tukaday salaadaydii markii aan salaadii tukaday baan ducaystay waxa aanan dareemay oo qalbigaygu dareemay in waxaan la i tusinayay ay tahay wax aniga maanta cibro qaadasho la iga dhigayo oo adduunka dushiisa baa la igu tusay xanuunka ay iska leedahay qiyaamaha iyo sidoo kale haddii aad adduunka dushiisa wax qaldan ku samayso hadhow in laga jaa'iseeyo waxaan go'aansaday inaan gabi ahaanba fanki isaga baxo waxaana agteeda deganaay masaajid ay lahaayeen wadaadada tabliiqa waxa aana u tagay maalintii waxaana u sheegay arrinteeda ugu warbixiyay dabadeed waxa ay yiraahdeen anagu diyaar ayaan kula nahay waan ku nasiixaheena walaalo inagana raac oo sidoo kale xaqan iyo diinta aan faafiheen nala faafi hadda waxa aan go'aansaday buu yiri inaan majmacaas ku biiro inta nolosheeda ka dhimanay aan ku tala galo sidii aan diinta u faafi lahay oo aan u garab istaagi lahay diinta iyo xaq Ilaahay waxa uu sheegay gabi ahaanba dadkii Soomaaliyeed hesiisa dhageysan jiray inay iska dileed galayaan waxa uu sheegay inta user ee YouTube-ka uu ka leeyahay isagoo hesiis soo gelin jiray inuu ka saaray waxa uu ka codsaday dadka Soomaaliyeed hesiisa qaatay inay iyaguna ka bixiyaan YouTube-da sidoo kale waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed aysan dhageysan hesiisa ayna Ilaahay dartiis isaga dhaafaan maadaama isaguba fanka Ilaahay dartiis uu isaga dhaafay sidoo kale FJ Xabiib waxa uu sheegay inuu baraha bulshada ka faafin doono dacwadda Islaamka waxa uu sheegay inuu dadka uga nasiixayn doono xumaanta una fari doono wanaaga waxa uu fariintan soo dhigay bartiisa Facebook isagoo ku cadeynayo inuu fanki gabi ahaanba ka baxay waxa uu sheegay sababihii ka dambeysay isagoo soo dhigay warqadan dheer uga hadlaya toobadiisa haddaba daawada waxaan idinka rajeynayaa inaad arrintan ku cibro qaadan doontaan waxaana fanaaniinta Soomaaliyeed ee fanka imin ku jira kula talinaynaa in sida wiilkan oo kale dhalinyarada ah ay fanka isaga baxaan geeridu markasta way ku dhowdahay waxaana kula dardaarmaynaa fanaaniinta inay fankan ka joogsadaan gabi ahaanba ay fanka isaga baxaan maadaama fanku uu yahay wax laga wanaagsan yahay waxaana u rajeeynaa sida FJ Xabiib oo kale inay fanka isaga baxaan sidoo kale fanaaniinta waxaan leenahay in hees la qaada xitaa waxa ka dambi badan inaad muuqaal qaab darro ah oo gabdho qaqaawan ah ku soo bandhigto taas ayaa waxay tahay dambi labaad FJ Xabiib waxa uu sheegay inuu ahaa fanaaniinta ugu adag ee dhanka ku dhaqaaqay si heesiisa ay u noqdaan kuwa shidan haddaba fanaaniinta waxaan kula dardaarmaynaa xitaa haddii aysan heesaha joojinayn inay muuqaalada qaqaawan ee gabdhaha ay joojiyaan taasoo ah wax xun oo laga fiican yahay indhaha dadkana aan u roonayn iyagana haddii hataa ay taageero ku raadinayaan aysan taageero ku helin bal dad badan ee ku taageeri jiray inay taageerahaadii kala laabanayno sidaan wada ogsoonahay waxa fanka asaguna ka baxay bishii hore fanaanka Qoomaal oo muddo dheer fanka ku jiray waxaana soo badanaya fanaaniinta fanka ka baxaydo sidoo kale isaguna waxa fanka isaga baxay Axmed Biif oo hadda kitaab ku raacday magaalada Muqdisho qaasatan deegaanka Ceylasha waxa uu noqday sheekh faafiya diinta Islaamka haddaba sidoo kale waxaanu kula taliyeynaa dhalinyarada fanaaniinta ah in ay fanka isaga baxaan intay dhalinyar yihiin oo ay cibaadada xaggeeda u leexdaan maadaama fanku uu yahay wax laga qurux badan yahay haddaba daawade halkaad warbixintan kala socotid waa channelka Haldoor Media haddii ay tahay booqashadaada ugu horeeyay ee channelkeena fadlan subscribe saara si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino